ورسلق النبي عليه الصلاة والسلام قفك الله وافجي وإلهي سي الله أكبر تقضى حاجته حديث النبي كوي صحيحة وحول إنك صحابقها يا رسول الله وحن بدي أصلق هذا لكن أوراد كلي أذكار كرنا والله هاي إمسان كدقها ما لما ميلود ملبان كدقها أصلقها هذا دوني سها إن أتكبد سنة واكاغا في عندي هذا بتصدح ميلود لما ميل سلقها أن كدقه أنت كلنا وحول هذا دونت هذا كبد ساكاغا في صلقها يقولون يدعى يقولون صلقها يقولون مكدقها وحول كجواب مركا إذن هذا سايكشو يكفى همك ويغفر ذنبك همك يمرغدا كويسه ادونك او دون ولا كافن اخرنا ذنب دافنا ولا شيء لبدنا ولا لبد مشكله انسان كايسته ادونكنا هم با هيستا اخرنا ذنب با هيستا لبد hadii laga cafiyo ka war maxaanad ku heshay waxaad ku heshay salliga nabi wad badisay kulka ninkay arrimo isu qaban laadahay ee wax ka kala haleysan yihiin mu arrimaha cuskado arrimaha nabiga noo tilmaamay saadiq al-masduuq mu cuskado intuu meelaha galab leeynay habeen ifiir waxaan ifiir dad kale makhluuq miskiin ah waxba haysan uu daba orday ilaahay ahmaashan saalixada uu ku siiyay xaajadaadana aad ku gudan yaqiin aad ku heleesh yani faa'iidada ilaahay waa maxay ilaahay waa ku baranba subhanahu jalla jalaaluhu kadib ilaahay ba qalbiga ku weynaanayo waxaad ogaanaysaa koonkani in markii rabbigan uu abuuray una ka tanaasulinayo wali uu isagu xukumo ila dad baan sama ogey dad badan waxa ku leeyahay dhulka cirka uu abuuray uu sameeyay laakiin dadku siiyay war dad ma siinina isaga iskale wali imisu ilaahay ku celcelinaya walillahi mulku samaawaati wal ard lahu ma fi samaawaati wal ard la yaqa'u fi al-kawn illa ma arad wuxu ilaahay doonay ahata ilmuhu bi kulli shay dhammaantiis wa rabbiga cilmigiisu koobay way imisu geeda wadankan ku taal Sweden Soomaaliya meesha iska wareer marfid leelan jooga baritaan tan Sweden Soma imise geed baa Sweden ku taal Soomaaliya marna ugu dhaheen waa lambar meel bay ku qoran yihiin computerizing qaar baa si tahwiili arrinta waxay ku leeyihiin geed ma jiro wadankan illa waa lambaraysan yahay waa la yaqaan ya lambar buu leeyahay أنا أردت أن يجرت أمر الماء لكن كبر سوقات إني جرت كبر سوقات إني جيت كستهم كبحة يكون جزر كبحة جزيرة ده يبضها يذا زورا إلى هو أول ترسين إسكدف جيده على ما هذا أو ترسن إسكدف على ما هذا أو نوله مركي أنت على أنتو أي جوضة أمر دمته لوك قصور بعضه مسوا قاريسوا إلا بعلم الله كور وما تسقط من ورقة إلا يعلمه إله علمي جسوس سدا واسع وياها ما أدري أرنت هذا يعني أنكو قبني ما حتى هذا إيش عندك أنت كم إيش مشاكلك ومحيين حاط علما بكل شيء إله سبحانه وتعالى يعني كم كرونا كان قوي سجوا ما لا يقفلين كم يدا كداون ما لا يقوين يحوت كبده كجري هل مر عن توجدي سود طبعا كن أو حبة أو وحواي أو ملاي كلا يريرة سجوا نبري وين هل مر مركو عن توجا قاتو أنا ممثلين كل وان أركي تلفين كوان كأركي واحد بدن إنه لقي أكيد واحد هنا لا طبعا كن أو حبة لو قياسها أنتوا هل مر لقوا وهل عن توجا وين تيلا بعدي تيسد حادي قلدي عشدي وأنا من تقولي فمن رازقه الله marka kaas waxa malaga meesha aan iloobin siiyay ee u sakhir rizqiisa adiga ma ku dahaya aba maxaad cunay hal xabo malaga wada dhameen laadahay 10 kun oo xabo weey markii kaliya fi kulli marra aflaamta noocaas daawada lil ibra wal i'tibar iyada ka khayr badan waxaan kale oo galab leento gaalada beenta ay sheegayaan inta ka dhacay inta bastoolo ku dhufay inta ka boodi meeshaan waxaan suurtoobi karin ba ay wax sawiran kaaga dhigayaan kuwaas ka fiican oo lil ibra oo ayadaha ilaahay aad ku qaadanayso qalbigaagana ay ka buuxsamayso kam wus'u khalqillah wa min ilmi ilaahi waxa kamidaba
kuwa aan isaga rumaysnayn oon ilaahayba ku mahadnaqaynin oon aayadahaasi waxba u taraynin inuu ku adeejiyey ay kusoo duubayaan oyna mar qura subxaan allah odhanayn iyo bal ka war laa ilaaha ila allah. waxaan xusuustaa marka alaaya la fi suurat yunus calayhi الsalaam qul induruu maada fi الsamaawaati wاlard wma tugni اlآaayaat wاnnuduru can qowmi laa yu'minuun. ilan qofkaan iimaan lahayn aayado waxba u tariba maayaan wax kastoo la tuso wax kastoo la tuso. marka acmaaq albixaar alaaf alkilomitraat intay tagaan oo acmaaqda ay galaan oy wax soo sawiraan oo ay arkaan sida ilaahay makhluuqaadkiisa u arsuqayo oo wax u siinayo oo u kala quudinayo oo u kala wado ayna mar qura subxaana allahi odhanay laa ilaaha ila allah. laakiin adigu waa inaad subxaana allah tiraa, waa inaad cilmiga ilaahay waasicnimadiisa aada ogaataa iyo qudradiisa jala jalaaluhu iyo koonkaas u kala wado u kala tadbiirinayo oona cidna cid kale ku halaynayni. quraanjada adduunka ugu yar maanta xaalkeeda ilahay waa la socdaa, waxay u baahan tahay wayba ogyahay. hadday jiran tahay waa caafinaya, ya hadday gaajaysan tahay cusaan isagaa siinaya, hadday guur rabto waa u guurinaya, hadday ilmo rabto waa siinaya. ku mashquuli maayo adigan weyn ku mashquuli maayo iyada ka mashquuli maayo. laa yushgilhu shayء can shayin huwa rab اlcaalamiin huwa malik اlmuluk. marka nabiga sheekadiisaanu haynay calayhi الsalaatu wasalaam. rasuul اllah salى اllahu alayh wasalam rabbigiis buu jeclaa, rabbigii buu ammaani jiray. axabahu waaxbaba alkhalqa ilayhi, ilaahay buu jeclaa, dadkana khalqigiisa waa jeclaysiin jiray. ma jirto waaqaco dhacaysa oo dadka hortoosa si caadiga u maraysa ilaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu isku xidhi jiray taa iyo qudrada ilaahay, xubiga ilaahay, raxmat ullah caza wajala ayuu ku xidhaya fi ay waaqac. maalan waxaa dagaal baa laga yimid, dagaalkii marka dadkii gaaladii waa lagu jabiyey, kolka haweenkii waa lasoo qafaalay, lasoo qabqabtay. marka mucaskarkii baa la yimid, meeshii baa la degan yahay oo nabiga iyo jeyshkiisa alayh الsalaatu wasalaam qof naag gaaladii ka mid a, dadkii lasoo qafaalay ka mid a ayaa ilmaheedii ka lumay. ilmihii bay marka deedaysaa, waa beerkii waa raadinaysa ilaa ay aragtay. ilmihii markii ay aragtay bay intay booday dadka dhexdiisa oy laabta saaratay bay nuujisay iyadoon u aabayeelin wax fiirinaya iyo wax kale. waa mowqif qof kaste dhaqaajinaya qalbigiisa, naxariista meeshaa ka dhacday soo maha. si caadiya nebigu iskagama dhaafin marka inay arrintaasi iska gudubto. bal fiiri suu ugu xidhayo addoommada rabbigooda ugu xidhayo. waxaan idin weydiinayaa buu yidhi, ma u malaynaysaan qofkaas ilmahaas dhashay hadda iyadoo awoodda caqligeeduna kaamil yahay, awoodeeduna buuxdo, inay ilmahaas kas iyo ula kac dab naara ugu tuurayso? ma u malaynaysaan? mayay dhaheen, lagama yaabo yaa rasuul allah, naxariista aan arkayna lagama yaabo inay dab ku tuurto soo maa. nabigu alayh salatu slam muxuu uga jeedaa? markaasuu wuxuu yihi lallahu ilaahay arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha. allah baa addoommadiisa uga naxariis badan tani siday ilmaheeda ugu naxariis. marka rabbigaas raxiimkaad leedahay, rabbigaa raxiimka uu nabigu ku baray calayhi الsalaatu wasalaam, sidaad u baran lahayd, ood u jeclaan lahayd, oo xaajadaada uga gudan lahayd, oo calaaqa aad ula yeelan lahayd. arrintu ma aha inaan anagu nidhaa ilaahay baan naqaanaa, ilaahay baan jecelnahay. arrintu waxaa weeye inaad tiraahid aniga ilaahay bin jecelyahay horta mise maya. hal yuxibunii rabbi? anta tuxibu, waa jeceshahay, lakin hal yuxibuk? inuu ku jecel yahay ilaahay sifaat baa la rabaa. sifaatkii uu kugu jeclaan lahaa ilaahay ma la timid? maya. haddaadan la imanin ku dadaal inaad la timaado.